السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وناكسن أصحابي ملكستو دغتا وريسان صباح وناكسن وبرنامج كيني كوبات ساكي وتلادو تاريخنا وحي كوبيغا تاي 3 مارسو سنة 2026 قضبada barnaamijka saakay aan idinku hayo waxa kamida xalay safaarada Mareykanka uu ku leeyahay Saudi Arabia iyo Kuwait oo daakum laga dhigay Mareykanka oo aflabadii qayliyay haddaba wararkaas waan idiin soo gudbin doonaa waxa soo kale aan idiin hayaa warkii subaxnimo ee ciidanka ilaalada kacaanka Iran afayeenkoodii uu soo saaray saakay 650 askari oo Mareykan ah ayuu yiri waxaynu ka dhignay kuwa aan dilnay iyo kuwa aan dhaawacnay Mareykanka oo sheegay xaaladdu inay ku xumaatay 12 wadan oo ku yaala bariga dhexe muwaadiniintiisii joogay wuxuu yiri degdeg uga carara xaaladdu waa xumaatay haddaba wararkii ugu waaweynaa sheekooyinkii dhacay tan iyo intaynu kala maqnayn ayaan halkan idinku hayaa qaybaha dambana waxaan idinku hayaa wararkii cusbaa iyo kuwii goosgooska ahaa ee iska soo daba dhacayay oo ada barnaamijkeeni koobaad waa barnaamijkii subaxnimo saakay waa talaado barnaamijkeena waxaynu ku faahfaahinaynaa maxaa ka soo kordhay xalay ilaa saakay dagaalka ka soconaya gobolka bariga dhexe Iran oo wacdaro cusub dhigaysa barnaamijka ayaan ku faahfaahinaynaa haddaba barnaamijka waxaynu ku bilaabaynaa safaaradaha Mareykanka uu ku leeyahay Saudi Arabia iyo Kuwait oo xalay daakum Iran ay ka dhigtay wax ka cishanaya ma jiraan aaway gantaali aaway hubkii lacagta faraha badan looga qaatay Sacuudiga ee la yiri wax aagiina iman kara male patriot ayaa la yiraahdaa wixii hawada soo gala wuu qararamsanayaa ma aragteen Sacuudigii waa yaaban Kuwait waa yaaban tahay Qatar waa yaaban tahay Bahrain waa yaaban yihiin wixii huba uu Mareykanku ka gaday wax ay galaan balamaarku نهول ببيش الربو أديقنويا ديارات درونا هده قنتال هده جوكتال وهيا إمارات أساقنا جوكتال لقيقلي حالي هدبا وراركاسو رن أيان إذين هيا مركو قول رئيسا وحانكو بلابينا تلفزيونكا الجزيرة أيا ساكي قري وربحين أولياي سفارة مريكان كأوكولي هي رياض أيا حالي وحي لكولانتي ويرار علص أو أيكوسو قادين laba kamida droonka Iran Trump ayaa isaguna ku hanjabay inuu aarsan doono qasaaraha soo gaaray wasaaradda difaaca ee Sacuudiga ayaa sheegtay in safaaradda Mareykanka ee Riyadh daakum laga dhigay xalay waxaana la sheegay afayeen u hadlay militariga Sacuudigu General Turki al-Maliki inuu sheegay safaaradda in ay soo weerareen laba droon oo uu sheegay in ay safaaradda ku dhaceen holac iyo qiiq fara badanna safaaradda uu ka baxayo kanaalka la yiraahdo Fox News ee Mareykanka laga leeyahay ayaa isaguna saakay waxa uu sheegay safaaradda Mareykanka ee Riyadh in lagu kala cararay wixiiba nool waxaana uu sheegay in halka lagu weeraray diyaarado oo markaasi halkaasi daakum laga dhigay sida uu sheegay way waxa soo kale warbixinta iyana saakay soo baxday kamida sheekada ah safaaradda Kuwait iyaduna xalay waa loo laabtay iyadoo markii hore ma midda Sacuudiga cusub laakiin midda Kuwait subaxii hore shalay la qararamsaday baa inta ka hartayna nagtaa laga saaray marka safaaradda Kuwait iyaduna waxa la leeyahay halkaas ayaa lagu dubtay oo labada safaaradoodba way wada holcayaan marka sheekadaas halkaas mare ninkii Trump ahaana waa dhaaranaya wuxuu leeyahay safaaradaha hadaanan midda ay ku dhigtay Iran anagu argudin midda aan sameeyo aday ku taala yiraahdeen alnagu lagama yaabay dhaheen haddaan Iiraaniyiin nahay taariikhdaba nooguma jirto inaan isdhiibid iyo masugays waa lagu kala tagay dheen meesha Mareykankii runtuu arkay wuxuu islaam markii hore aayatullaahigaba hadaa meesha ka bixiso oo la dilo dalku isku dhaxyaacaya
laakiin waxyaabaha la yaab kale ee aan soo akhriyay waxaa ka mid ah ciidamadii iiraan aw militariga iyo ciidanka ilaalada kacaanka laba ciidan ay leeyihiin wixii madfac tuuraya iyo wixii kale maahane ciidankii infantryga ama lugta ahaa magaalooyinka iiraan oo dhan ay soo galeen iyagoo dhar cad wata qoryahoodana wata ninkii nuuxsada mudaaharaadaan samaynaa yidhaahda ninkii afka kala qaada asay u taallaa yidhaahdeen waddanka oo dhanay dib ugu laabteen waxay yidhahdeen maraykan awal muu lug noogu imaanayay maye israa'iil ma awale lug noogu imaanaysa maye wixii gantaal iyo difaaca diyaaradaha iyo ciidankii qaabilsanay u taallaa annaga dalkan ninkii cagta soo dhiga iyo ninkii jaajuus oo u shaqeeya aan nagta ka saaraynaa ma maqasheen warbaahintii reer galbeedka mudaaharaadyaa dhacay wadaadka markuu dhintay oo maaragtay oo looga soo horjeedo oo kaa tashteen nimankaan waxaa keliya la ogol yahay dadka wadaadka u baroor deeqaya ooynaya oo ku haya shiicada oo ku haya kuwaasaa loo ogolyaha bis inay soo baxaan ciddi kaloo soo dhaqaaqda wallaahi dhagtaa ka saarayna haddana sargaal kasta amaruu haystaa gooni adigaa go-aan ka gaari karaa layiri waxaa aragtid xaalad adagoo ku jiraa waddanka nin walba meesha uu joogo xukunkeeda asaale marka xaalku halkaasuu horta marayaa waxaan soo akhriyey maraykankaan marka galaynaa sheekadiisa maraykankii soo u joogay halla kala cararo yiri halla kala cararo 12 wadan ayuu wuxuu yiri hal laga baxo wixii maraykan joogay walla qararamsaday nagtaa laga saaray hadda waa la kala ordayaa maraykan wuxuu yiri meeshaas joogis male awalna iiraan maxay ku hanjabtay wallahi soo hal xabba ka badbaadeeneen maraykanka meelaha ku joogo haddaba markaan idin tusoo wararkii ugu dambeeyey aljaziira waxay leedahay saaki hadda ka baxa amar ah waaye maraykanka dhahaya hadda ka carara oo ka baxa maraykanka wuxuu ugu baaqay dadkiisa inay ka baxaan 12 dowladood oo bariga dhexe ku yaala haddaba warbixinta way sii socotay waxaa leeyahay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa ugu baaqday dhammaan muwaadiniinta maraykanka inay ka cararaan oo ay sida ugu dhaqsaha badan nin walba meesha uu ka bixi karo uu ka baxo 12 dowladood oo ku yaala gobolka bariga dhexe haddaba wasaaradda arrimaha dibadda waxay sheegtay oo ay ku baaqday dadka ku nool dalalka Iiraan, Ciraaq, Urdun, Lubnaan, Israa'iil iyo dowladaha kale oo ay ka mid yihiin Bahrain, Masar, Kuwait, Saldanada Oman, Qatar, Saudi Arabia, Imaaraadka, Suuriya iyo Yemen maxaa harayba 12 wadan oo ku yaala bariga dhexe halaga cararayna meeshaan joogis male marka joogis male meeshaan hala kala cararo markay leeyihiin nimanka maxaa ku dhacay afar askari naga dhintay laayeen dadka kale way nabad qabaan maxaa jira maxay arkeen saaki marka waxa shirkiisa jaraa'id qabtay subaxla leeyahay ninka xogaa saacado markuu baqnaadaba waa yimaada afayeenka waxa la yiraahdaa ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan nimanka howlgalka wata waay abdeedu siinaya dadka adduunkana uu warku siinaya saaki marka wararkiisii maxaa ku jiray ma garanaysaan 650 askari oo ciidanka maraykanka oo saldhigyadan ku daadsanaa iyo safaaradaha wax dhintay iyo wax dhaawacma ka dhigno ha qarsada doro maxaa ka dambeeyay marka fagatax halla kala cararo muxuu carara hadii meesha waxba jirin oo gantaalihii qatarta ahaa wax walba waa geynay saldhigyada dowladaha saaxiibada ahay waa ilaalinayna ay ku hayeen ma aragteen Israa'iil waa ku socotaa xalay 3 jeer la duqay meel kala duwan dukkum laga dhigay iyaguna waxay leeyihiin anaguna weeraraan qaadnay Iiraan aan duqaynay marka sheekada way sii gubanaysaa bariga dhexe maahane wax ka soo dhow male Iiraan waxa la islaa barkii hore wadaadka ba celinay moogtay oo ayaan la aadin laakiin hadda nin walba waa fasaxata markii la yiri qiiqay ka bixiyay gobolka haddaba marka waxaan idin soo koobayaa dhowr warbixin oo kuwii ugu muhiimsanaa saakay afayeenka ilaalada kacaanka Iiraan telefishinka Al-Jazeera ayaa soo koobaya haddaba wuxuu ku bilaabay telefishinka Al-Jazeera ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan
waxay sheegeen saakay afayeenkoodu sheegay tirada dhimashada iyo dhaawaca militariga Mareykanka inay hadda gaarayso 650 ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan waxay sheegeen cadadka tirada inta la eeg ee Mareykanka inuu yahay 650 oo waliba 650 kaas la dilay maalintii koobaad iyo maalintii labaad ee dagaalka ayaa lagu khaarijiyay inkastoo Mareykanku ay shalay sheeganayeen in 4 askari kaliya ay hadda xisaabtoodu marayso oo markaa ay halka marayso taas waa qaybtaas wuxuu ka hadlay afayeenka khasaaraha ay u geysteen askarta Mareykanka safaaradaha la holciyay iyo wixii ku jira ayaga u tala kuwaas diblomaasiyadii buu xisaabsana haddaba marka warbixinta qayb kale ayaan galaynaa oo isla ilaalada kacaanka telefishinka Al Jazeera wuxuu leeyahay ilaalada kacaanka Iiraan waxay sheegeen saakay haddana inay bartilmaameedsadeen saldhig ku yaala Kuwait halkaas oo ay ku urursanaayeen maartay saldhig ku yaala Kuwait iyo meel ay isugu soo urureen Mareykanka oo Dubai ku taalay waa laba meel saldhiga Kuwait ku yaala iyo tajamuc oo ciidamada Mareykanka oo Dubai ay isku soo yimaadeen ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan waxay sheegeen saakay inay bartilmaameedsadeen saldhiga Kuwait ku yaala ee la yiraahdo Arifjan waxaana ay sheegeen 10 diyaaradaha daroonka inay markaa geliyeen oo ay nagta ka saareen dhanka kale waxaa la sheegay in diyaarado daroona ay dambaska kaga dhigeen ciidamo Mareykan oo isugu soo baxay Dubai oo markaa magaalada Dubai ee dalka Imaaraadka ciidankaasi waliba waxay sheegeen tiradoodu inay dhameed 160 askari oo meel la isugu keenay oo markaa rabay in meelaha ay ka baxaan goorba carraan 160 meel ay joogtay ayaan dambaska ka dhignay cabaadkoodii baxay iyo qayladoodii taraam waa argoosana oo kuleeyahay maxaa la argoosana ayatullaahi waa dishay ka xaaxaabi hawsha ma ujeedaa meesha ay barayso ciyaar baa Iiraan haddii xataa laga adkaado waxa leeyahay gobolkan taariikhi uga tagaysaa dadaaba aaminsan inay iyadu guuleysan doonto ha dheeraado dagaalka ama waqtigu rabaa qaato waxyaabaha kale ee cusub ee soo kordhay Al Jazeera ay heshay waxa kamid ah shaqaale sare oo ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka hadda waxa loo bixiyay wasaaradda dagaalka Pentagonka shaqaale ka tirsan oo muhiim ah oo ku sugnaa Bahrain ayaa la soo ogaaday meeshii deganaayeen nimanku imtixaansana yaa u soo warramaa isleeday satellite-yada Ruushka iyo kuwa Shiinaha ee bariga dhexe saas loogu soo foorariyay ayaa talaab kasta u gudbinay halkaas ay joogaan halkaas waxba ka jira waxa la leeyahay nimanka Shiinayska iyo Ruushku inay shaqada yaa laba moodo laakiin shaqada ugu badan 160 askari halkaas isku timid halkaana meesha waxa ka jira halkaan shaqaale wasaaradda gaashaandhigga ka yimid jooga oo qiimeyn ku sameynaya waliba qasaaraha weyn ee soo gaaray saldhigii Mareykanku oo ku lahaa Bahrain ciidamada badda meeshii ay joogeen way ustuul bahriya yaalay maraakiibta meeshii deganeed way ay qiimeyn ku sameynayeen maxaa lagu sameeyay sida roobkii ugu daaday baashi daroonka ma soo noqdo asaga wixiisa waa wataa daroonka miinooyinkiisa iyo wixiisa qarxaayuu wataa soo u socdo oo kugu dhamaara meeshuu galaa jugto ka saara haddaba marka aradito soo wararkii ugu dambeeyay iyadoo sheekada laga qoray wararkii ugu dambeeyay ee soo kordhay waxa la leeyahay waxaa dhaawacmay sida la sheegayo shaqaale ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga Pentagonka Mareykanka kadib markii Iiraan ay ku weerartay Bahrain mas'uul Mareykan ayaaba u sheegay telefishinka Al Jazeera saaki inay kaga dhaawacmeen Bahrain shaqaale sare oo ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka dalka Bahrain xaaladda shaqaalaha Pentagonka ee dhaawacmay ayaa waxaa la sheegayaa inay hadda xaaladoodu degan tahay sida mas'uulkaas uu u sheegay telefishinka Al Jazeera uu u sheegay waa u jeedaan meel xataa inay tageen niman madaxa
ولا لا السعودان وحلا لي يا بتاسو مريكن با وزارة داربها دبدا ساكي بركة إلى ذاي لبقية طبعا وضن هلا عررو حتى كبح غادروا الآن إلى ذاي حتى هلا عررو حتى ما إني والله ماشوا كبح كرو ماشوا نلك ماري كرو حبحوا حد حبحوا معناه ذا محاوي وأنا لكرت تاجين هواي هل نينو بحصنا عمله ورماشي سجع عررو meesha kaliya aan lagu darin hal laga cararo waa turkiga Iran ma weerarayso mar hore sheegtay inkastoo Mareykan degan yahay ay ogtahay sababtoo ah turkiga sheekadiisu waa weynaanay wuxuu ku jiraa gaashaanbuurta NATO ku jiraa qodobka shanaad ee gaashaanbuurta NATO horaadi kugu sheegay wuxuu dhigayaa wadan kamida gaashaanbuurta NATO hadii dhulkiisa la soo weeraro wuxuu la mid yahay NATO oo dhan oo la weeraray marka nimanka NATO oo dhan maxay ka rabaa inay soo weerarto مربان لكن انت انا كبدن با جبتي هذا 650 مرينا لبا مaalmood kulay oo ciidamada Mareykanka marka Mareykanka oo dhan oo qaxaya ma Turkigu daga xagu aada Turkigu saxagee u soo maraya waxa kale oo la duqeynaya Iraq Arbiina la duqeynaya jugta laga haya barnaamijkii xalay waa aragteen diyaaradahoodii kacsadeen xalay Sukhoi 24 oo Ruushka ay ka soo gateen Iran waxay ku duqeeyeen هنا بالكي قدر أي لهيد لبض ديارضود وأسور ردني هاي حالكم مركا دنان باشوا وكروشاي دبس كان إسكندرية وحلا يسور يبرا ملء ميشان إسرائيل لما حكى سو كردي حال لبض جيرة جكت لجلي وررك الدون حسب الله هنا وررق عاد درون الساعة oo ayaduna xalay ay nagta kaga saartay deegaana ka tirsan halkaas Israa'iil iyaduna weerar ku qaaday Iran iyo Lebanon labadaba say sheegtay iyaduna halkaas xaajadu maraysa wararkaas ayaa marka soo kordhay qaybtii marka waxa noo hartay intaan hadda hadlaynay wixii war soo dhacay iyo wixii kale warar oo arursan ayaan iyadana idin dul mari doonaa xabay meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena subaxnimo saakay waa subaxnimo talaada قيبي قد بي برنامج قيبتنا وحنا قلت لك أخبار عاجلة لهذا وررك دق وفايل دن أو وررك إسكسو ضمن عيان وررك عدة سكبتين مركا كوا أقوم مهمشان أيان يدين دول مريا سياد حقوه ذا أسي أوغاتان حتى ما تلفزيون الجزيرة يا وحو قبل لابا يا وحولي وكيل كإيران أفرد يا قرامة مذوبي وحا أوشيغي إناني إيران برتلمامي سنين مصالحda ama danaha dawladaha dariska wakaalada wararka ee tasniim waxay sheegtay in marka wakiilka qaramada midoobay u fadhiya Iran inuu sheegay inaanay dawladaha dariska iyagu wax dhibaato u geysanin oo aysan wax weerara ku qaadin danahooda gaarka ah waxaana uu yiri waxaan weeraraynaa Mareykanka iyo danihiisa kaliya dhanka kale Sacuudiga ayaa war soo saaray goordhow intaan barnaamijka ku jirnay wuxuu leeyahay waxaynu ka hortagnay saakay 8 kale oo diyaarado drone ah oo markaa iyagoo ku soo dhawaaday magaalada Riyadh ayaanu ka hortagnay ayay yiraahdeen Sacuudiga dhanka kale waxaa la sheegayaa in qaraxyo laga maqlay saakay mar kale deegaanka la yiraahdo Isbac Jaliil oo ku yaala dhulka ay Israa'iil xoogga kaga haysato Suuriya oo saldhigyo ciidan Israa'iil ay ku leedahay Trump waxa uu sheegay inuu la kulmi doono wasiirada lacagta ama maaliyadda iyo wasiirka tamarta duhurka maanta ah inuu la kulmi doono wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Abbas Araghchi ayaa isaguna wuxuu sheegay in marka dagaalka hadda socda Mareykanku ay iyagu mas'uul ka yihiin wakaalada wararka ee Iran ee liiraado tasniim iyaduna waxay leedahay hujuum ama weerar gantaala oo Iran ayaa waxa mar kale lagu qaaday saakay aroortii haddana ciidamada Mareykanka ee jooga dalka Kuwait Netanyahu waxa uu isaguna sheegay in dagaalkan uu yahay dagaal masiiri ah oo markaa la isku baabi'i doono oo Iran looga adkaan doono Trump ayaa isaguna waxa uu gaarsiiyay aqalka baarlamaanka Mareykanka ee Congress-ka si rasmi ah garaacista Iran oo markaa uu u sheegay sida ay qortay Fox News wararka kale ee cusub iyana ee soo kordhay waxa kamid ah taliska ciidamada Mareykanka ee liiraado CENTCOM ayaa iyaguna waxay sheegeen inay bartilmaameedsadeen oo ay burburiyeen goobo ay ka soo dhacayeen gantaalaha weerarka Iran
واتاي wararkaasuna waxay ahayn warar goosgoosa oo hadda qaarkood intaan barnaamijka ku jiray ay soo dhaceen sheekada marka xiisaa leh wax yar comments aan rabaa inaan ka bixiyo safiirka Iiraan u fadhiya qaramada midoobay war weyn u sheegay wuxuu yiri annaga dawladaha dariska ah dhaqaalahooda iyo danahooda ma weerarin laakiin Mareykanka weerarna murana maanta taagnaa marka ku saabsan meelaha gaaska iyo shidaalka Sacuudiga iyo Qatar iyo oo la weeraray in Israa'iil ay daroon u dhaxgelisay si Sacuudiga iyo Qatar iyo kulli dagaalka ay u soo galiso oo fiirsada waa la iskhiyaabaynaya meesha lugooya ku jirto marka safiirkii qaramada midoobay ee Iiraan u fadhiyay qaramada midoobay ka sheegay xalay wuxuu yiri anagu ma taabanin danaha dawladaha dariskeena ma taabanin laakiin Mareykanka meelaha ay joogaan andukum daakum ka dhin waana sida ay tahay waa safaaradaha saldhigyada ciidanka jugta ku hayaan ma maqasheen amiir gurigiisa la weeraray ama boqor meel uu degan yahay nagta laga saaray may dad masaakiina la weeraray meelaha jugta laga gelinayo waa meesha Mareykanku degan iyo hotel ay lagu ogyahay inay degan yihiin iyo guri ay degan yihiin marka sheekada wali buuq fara badan meesha marka ka jira Sacuudiga laftirkiisu wuu dareensan yahay leeyahay hadda waa baaritaana lagu wadaa firirkii waxa la raadinayaa diyaaradihii ku dhacay meelihii shidaalka Sacuudiga iyo Qatar sheekadaas iduna waa culus tahay wixii ka soo kordha barnaamijyada dambaar idin kula socodsiinaya ku xirnaada mar walba barnaamijyada xaqiiqda ku salaysan inagoo mar walba idin soo gudbina wararka iyo macluumaadka xaqiiqda iyo halka aynu ka keenay iyo warbaahintii qortay intaba la garay oo share garay barnaamijka haddaad nagu cusub tahay si aad nooga mid noqoto nagu soo biir subscribe ka samayso YouTube-ka Facebook-na haddaad nagala socoto follow garay inta aan mar kale barnaamijkan lamida ku kulmayno asxaabay nabad